السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركلة السوداء وهذا أدي هذا ومهتسنتهين وقالك محربا إن ندي كل وداقه ويل سوماليا أو صاحبكي لبسنا كهر الدلي أو شلي لحكومي حدا بإمس السنة أي لغو حكومي كد مركي دنبجي سدلك صاحبكي وقرتي وان إذن لا وداقية ويلشي سوماليدا هيدا جانجس كلابدا كوحيد هيد أو أفرتي بيشن سكوريسا سيي bartamaha magaalada St Paul ee gobolka Minnesota oo saddex kamid ah shalay maxkamad la soo taagay haddaba imisa lacag oo damaanad ah ayaa lagu xiray saddexdooda in lagu sii deyn karana waan idin la wadaagaya madaxweyne Trump oo shalay laba guul darro ay uga soo hoyatay dhinaca garsoorayaasha maxkamadaha federaalka labadaasi guul darro maxay yihiinna waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada maalimadii shalay ahayd waxa la xukumay wiil Soomaali ah oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Aadan Xareed oo 26 jir ah isla markaana 2 sano ka hor meel ay ka wada shaqeynayeen oo ah Amazon ku dilay saaxiibkii oo lagu magacaabi jiray Axmed Ibrahim Cafiif arinta dilka sidee u dhacday horta ayaan rabaa inaan idin la wadaago labadan wiil saaxiibo ay ahaayeen shaqada ay isla aadi jireen waliba hal gaari ay wada qaadan jireen wiil saddexaadna waa uu la socday saddexdooda ayaa shaqada wada aadi jiray xilli xabiin ah ayna waxayna ka wada shaqeyn jireen Amazon oo ku taala Lakeville Minnesota marka waxa dhacday in bishii June 29keedii sanadkii 2024 in Maxamed Aadan Xareed in gacantiisa alla ku sababay in uu dilo Axmed Ibrahim Cafiif oo xilligaas isaguna 22 jir ahaa waxa uu Maxamed Aadan Xareed uu dambigiisa qirtay bishii January ee sanadkan waxaana uu qirtay dil heerkiisu yahay midka labaad kaasi oo aan si ula kaca uusan saaxiibkii u dilin markaasi kadib ku dhawaad muddo 2 sano ayuu hadda xabsi ku jiray shalay ayaana waxana garsoore uu ku xukumay 10 sano iyo 6 bilood ayuu ku xukumay waxa sidoo kale credit ahaan lagu siinayaa ku dhawaad 2 sano 700 oo maalmood oo xabsiga uu ku sii jiray waa laga jarayaa 10 sano iyo 6 bilood ee hadda lagu xukumay haddaba dilka sida uu dhacay ayaan rabaa inaan idin la wadaago labadan wiil sida ay sheegay shaqada ay isla imaan jireen isla markaana Maxamed Aadan Xareed waxa uu watay bustoolad u sharciyeysan oo ogolaasho uu u haysto sidaas darteed waxa bustoolada ugu xirnaa nal bustoolada inta badan dusha sare loogu xiray xilliyada habeenkii qofku hadii uu ridayo si uu u arko halka uu ku ridayo sidaas darteed ayaa waxa la leeyahay waxa uu Maxamed uu ogaaday markii shaqada break ay u soo baxeen oo 7 saac habeenimo ay ahayd in nalkii bustooladiisa ku xirnaa uu maqan yahay sidaas darteed waxa ay bilaabeen in ay gaariga ka raadiyaan isla markaana saaxiibadii ayuu weydiiyay inay arkeen iyo in kale markaas kadib waa ay waayeen shaqadii ayay ku laabteen haddana 3 saacadood kadib afartii habeenimo ama 10 saac oo habeenimo ayaa haddana mar kale waxa ay bilaabeen in nalkii bustooladiisa ku xirnaa ay raadiyaan markaas kadib Cafiif oo ah wiilka dhimanaya ayaa aad uga carooday in lagu eedeeyo in uu saaxiibkii ka xaday nal bustoolada ugu xirnaa kadib markii Xareed dhowr jeer uu weydiiyay warniyahu nalkaygii ma aragtay markaas kadib Cafiif ayaa waxa labadooda ayaa istagaalay ilaa iyo 2 jeer oo kala duwan ay istagaaleen kulay marqaati furkan waxa sameynaya wiilkii saddexaad oo saaxiibkood ahaa oo la socday sida cabashada maxkamadda lagu soo gudbiyay dacwadda ku qornayd in ay istagaaleen markaas kadib waxa la leeyahay Xareed ayaa bustooladiisa waxa uu ka soo bixiyay dhabarka oo ay ugu xirnayd markaas kadibna 2 xabadood ayuu ku dhuftay Axmed Ibrahim Cafiif labadaasi xabadood waxay si wada jira u haleeleen Cafiif iyo waliba gaarigii ay wada wateen dhalinyaradan markii baaritaan lagu sameeyay meedka Cafiifna waxa la ogaaday in rasaastu ay ka haleeshay wadnaha sambabada iyo waliba halbowlaha dhiiga qaada in ay ka haleeshay isla markaana uu rasaastaasi u geeriyooday Cafiif marka shalay ayaa Maxamed Aadan Xareed oo 26 jir ah waxa lagu xukumay 10 sano iyo 6 bilood waxaana sidoo kalena ka jarmaysa 2 sano ku dhawaad uu xabsiga uu ku jiray intii la sugayay in la xukumo maadaama dambigiisa bishii January ee sanadkan horaantiisii uu qirtay dil heerkiisu yahay midka labaad
oo aan ula kac ahayn ayuu qirtay. marka intaas ayaan ka gudbayaa xukunka wiilkaasi. shalay waxaan idinla wadaagay dhalinyaro Soomaaliya hoggaankiisa oo 4tii bishan bartamaha magaalada St Paul ee caasimada gobolka Minnesota isku xabadeeyeen xilli waliba halkaasi qalin jibin ay ka socotay oo laba kamid ah iyagii isxabadeeyay oo labada group ka kala tirsaneed ay ku dhaawacmeen. marka 5 qof ayaa la soo xiray, 3 kamid dacwado ayaa lagu soo oogay, mid qaangaar ma ahan oo dacwadiisa lama shaacin lagu soo oogay, midna lama shaacin dacwadaha lagu soo oogay, laakiin 3dii kale ayaa shalay maxkamadda la soo taagay. waxaana sidoo kale maxkamadda markii la soo taagay garsooruhu uu ku xiray lacag damaanada oo lagu sii dayn karo. Sakriye Xaashi Saciid oo isagu ku dhaawacmay weerarkaasi waxaa laga dhigay lacagta damaanada lagu sii dayn karo ilaa iyo $150,000. lacagahaasi damaanada ah qofka lagama wada qaado, gobol kastaba waxa uu leeyahay percentage u gooni ah, ama 10% ama 20% ayuu dhigayaa. lacagta qofkaasi uu dhigayna ma ahan lacag la soo celin karo. marka waxaa isaga laga dhigay Sakriye Xaashi Saciid oo 22 jir ah $150,000 in lagu sii dayn karo, halka sidoo kalena Cumar Cabdiwahaab Maxamedna isagana sidoo kale laga dhigay $150,000 lacagta lagu sii dayn karo. Khalid Cali Maxamuud isagana waxa laga dhigay lacagta damaanada lagu sii dayn karo $75,000. Khalid Mahmoud's bail is set at $75,000, while Zachariah Saeed and Omar Mohammed are both being held in jail on $150,000 bail. xitaa waxaa shalay maxkamadda lagu soo bandhigay in markii labada dhalinyarada ee labada group kala tirsan ay dhaawacmeen in Zakariya walaalkii uu isku dayay xitaa isbitaalka gudihiisa markii la geeyay midkii kale ee kooxda kale ee gaangiska ka tirsanaa in isla goobtaasi uu ku dhibaateeyay inuu isku dayay oo xitaa isbitaalkii ay isla gaareen. marka wiilashaasina iyagana damaanadaasi ayaa shalay lagu xiray markii maxkamadda la soo taagay. dhinaca kale madaxweyne Trump waxaan ognahay ilaa iyo markii uu xukunka Mareykanka uu la wareegay waxa la yiraahdaa ayaxtag eelna reeb. Trump waxa uu doonayaa magaciisa iyo sawirkiisa inuu meel kasta uga tago maadaama uusan mar kale tartami karin oo horey madaxweyne uu soo noqday mar saddexaadna uusan tartami karin. waxaa jirtay in xarunta Kennedy Center oo madaxweynihii hore John F Kennedy lagu magacaabay in Trump uu guddigii dhan kala diray, guddi isagu uu madax u yahay uu meesha geeyay, isla markaana sidoo kalena magaciisii uu Kennedy Center uu bedelay, isla markaana Donald J Trump Kennedy Center uu ka dhigay. sidaas darteed ayaa shalay garsoore federaal ah oo fariista Washington DC oo la yiraahdo Christopher Cooper waxa uu soo saaray xukun 94 bog ka kooban oo leeyahay xuquuqda magacaabista ama magac ka bedelista xarunta Kennedy Center waxa iska leh Congress-ka oo markii hore magacaasi u bixiyay, marka madaxweynuhu magaca kama bedeli karo oo magaciisa kuma bedeli karo. madaxweyne Trump waxa uu sidoo kale soo jeediyay in muddo 1 sano uu xirayo xarunta Kennedy Center isla markaana dib u dayactir lagu sameynayo. garsooruhu xitaa waxa uu yiri ma xiri kartid, isla markaana muddo 2 toddobaad 14 maalmood ayaa la siiyay xitaa website-ka in magacii hore Kennedy Center lagu soo celiyo, isla markaana magaca Trump laga tiro xaruntaasi. sidaas darteed Trump qoraal dheer oo ka koobnaa 582 xaraf ayuu ku soo qoray bartiisa True Social oo garsoorahaasi ku eedeynayo. garsoorahan waliba Obama ayaa magacaabay oo waxa uu leeyahay garsoore Barack Hussein Obama uu magacaabay ayaa hadda waxa uu ka soo horjeestay dib u dayactirkii aan ku sameynayay xarunta Kennedy Center. marka Trump gabi ahaanba arrintaasi waa laga hor istaagay oo waxa la yiri magacaada waa inaad meeshaasi ka fujisaa, isla markaana dhammaanba xitaa website-ka gabi ahaanba aad magacaasi ka tirtirtaa oo magacii hore aad ku soo celisaa. madaxweyne Trump waxaan ognahay sidoo kale wasaaradda cadaaladda sawirkiisa oo weyn in lagu soo dejiyay maadaama aan ognahay hadda Mareykanku inuu u dabaaldegayo 4 bisha July ee soo socota in sanad guuradii 250aad ee ka soo wareegatay xornimada Mareykanka in baasaboorada qaarkood sawirka madaxweynaha lagu soo dejiyay. waxaa jirtay Khamiistii sidoo kale wasiirka maaliyadda Scott Bessent inuu soo bandhigay lacag $250 oo isku dhagan oo saxiixa madaxweynaha iyo sawirka madaxweynaha uu ka muuqanayo, wasiirka maaliyaddana saxiixiisa uu ka muuqanayo. laakiin dastuurka Mareykanka waxa uu dhigayaa qof nool sawirkiisa laguma soo dejin karo lacagta Mareykanka. haddii uu dhinto waa meesheeda, madaxweyne Trump markaas kadib waa laga yaabaa, laakiin Congress-ka ayaa arrintaasi approval ay uga baahan tahay. lacagtaasi $250 oo isku dhagan oo sawirka madaxweynaha uu ku dhagan yahay in uu Congress-ku u ogolaado. marka Trump waxa muuqata marka in uu meel kasto magaciisa iyo sawirkiisa uu doonayo in uu uga tago. waxaa sidoo kale jirta in shalay garsoore kale oo federaal ah oo la yiraahdo Leonie Brinkema
in iyaduna ay si kumeel gaar ah u joojisay lacag ku dhowaad $2 bilyan oo madaxweyne Trump uu doonayay dad uu ku tilmaamay in wasaaradii hore ee cadaaladda ee maamulkii Biden ay si cadaalad darro ah ay ula dhaqantay in magdhow ahaan loo siiyo. Trump isaga ayaa isdacweeyey, waxaa jirtay lacag 10 bilyan ah inuu IRS ku dacweeyey maadaama uu sheegay in canshuurtiisii ay si sharci darro ah ay ku soo dusiyeen. 230 milyanna waxa uu ku dacweeyey wasaaraddiisa cadaaladda oo uu yiri intii Biden uu xukunka hayay ayaa aniga baaritaano kala duwan la igu sameeyey. Marka Trump isaga ayaa isdacweeyey, isaga ayaa haddana isla heshiiyey. Sidaas darteed wuxuu yiri waan ogolahay inaan dacwadahaas midda IRS-ta iyo midda wasaaradda maaliyaddaba aan baabi'iyo, laakiin waxaan doonayaa in la sameeyo sanduuq la yiraahdo anti-womanization fund, taasi oo loogu talagalay lacag ku dhowaad 1.7 bilyan in lagu shubo isla markaana dadkii cadaalad darrada maamulkii Biden uu kula dhaqmay in magdhow lagu siiyo. dadkaasi waxaa ku jira marka 1600 oo dadkii January 6 Trump markii doorashadii waa laga xaday uu dhahayay Congress-ka weeraray oo Trumpna maalintii koobaad ee xilka loo dhaariyay 20 January ee sanadkii 2025 1600 uu cafiyay. dadkaasi ayaa wuxuu leeyahay lacagtaasi waxaa maamulaya 5 qofood, wasaaradda cadaaladda ayaana maamulaysa, wayna soo dalban karaan oo dadkaasi ayaa magdhow ahaan loo siinaya. arrintaasi xitaa xisbigiisa Republicaanka xubnaha Congress-ka ay ku jira waa ay ka soo horjeesteen, waxayna ku tilmaameen mid sharci darro ah. marka garsoorahan federaalka oo magaceeda la yiraahdo Leonie Brinkema shalay waxa ay ku tilmaantay arrintaasi mid sharci darro ah, waxaana iyadana magacaabay Clinton, waxayna wasaaradda cadaaladda ay ka dalbatay tallaabo dheeraad ah inaysan qaadi karin isla markaana lacagahaasi wax akoona aan lagu wareejin karin. sidaas darteed labadaasi guul darro ayaa madaxweyne Trump shalay garsoorayaasha federaalka kala soo gudboonaatay. mid waa xaruntii Kennedy Center oo magaciisa lagu dhajiyay in laga fujiyo isla markaana uusan xiri karin, tan kalena waa lacagtaasi 1.7 bilyan uu yiri dadkii maamulkii Biden si cadaalad darro ama ay ku maxkamadeeyeen ama ay ku xireen ayaa magdhow lagu siinaya oo garsoorahan kale uu ka hor istaagay. arrintaasi oo waliba muran weyn dhalisay, xubnaha Republicaankana ay si aad uga soo horjeesteen. xitaa waxaa jirtay sharci la filayay in sanadka uu codeeyo, sidaas darteed arrintan iyagoo ka careysanna ay sharcigii intay gabi ahaanba meel iska dhigeen ay fasaxii Memorial Day-ga ay aadeen oo hadda ay ku maqan yihiin. marka Trump xisbigiisa arrintan aad ayay uga soo horjeesteen, gaar ahaan xubnaha Republicaanka ee labada aqal ku jira. aad iyo aad u mahadsantiin.